taariikhdu waa 21 December sanadka 2023 kusoo dhawaada barnaamijkeena daqiiqadaha wararka baahinteena fiidnimo Afrikada barina saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan idin hayo caawayd maqli doontaan waxa kamid ah Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye Khadiija Maxamed Diiriye oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho baroordiiq tacsi iyo isu soo bax weyn ayaa loo sameeyay aaskii marxuumadda ee maanta ka dhacay Muqdisho Israa'iil dadka ay Gaza ku laysay ee ay xasuuqday waxay gaarayaan 20,000 oo qof 52,000 waa dhaawac Puntland khilaaf baa cirka sii galaya oo waxa la isku haystaa waxa laga yeeli doono 17 xildhibaan ee SSC Qaatumo ka iman jiray su'aalahaasi waxa ay ka taagan yihiin bartamaha caasimadda Laascaanood oo maanta shacab isu soo baxay uu la hadlay hogaamiyaha SSC Qaatumo Cabdiqaadir Firdhiye talada SSC Qaatumo xagala geel wax gunti la geliye ka weyn maanta wax garaatuurta ku qaadan karaya maaha wax Cabdiqaadir ku tala bixi karayna maaha wargaadi oo ka tirsan degmada Cadalle ciidanka dawladda ayaa burburiyay dhul isku haystay oo laba qabiil uu ka dhaxeeyay warkaas ma qaadateen aniga xageeyga wixii ka yimaada adigana waa xaq ilaahay marqaati ka ahaw dacwad la yaab leh oo gada dhageysigeeda maanta uu ka bilowday laba askari oo mid ay haweenay tahay ayaa dacwadooda maanta la naqaya iyo qodobo kalaba aan ku bilaabe naxariistii jannana Allah ka waraabiye Khadiija Maxamed Diiriye ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho wasiirkii hore ee haweenkii arrimaha xuquuqul insaanka oo shalay ku xijaabatay isbitaal ku yaala magaalada Djibouti ayaa maanta meedkeeda laga soo qaaday caasimadda Djibouti Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre iyo qaar ka tirsan wasiiradiisa ayaa meedka diyaarad kaga soo qaaday garoonka diyaaradaha Djibouti janaaso weyn oo ay ka soo qayb galeen boqolaal qof ayaana loo sameeyay xukuumadda ayaana hakisay wax walba oo shaqo ah dalkana waxa la geliyay baroordiiq iyo tacsi dadka ka soo qayb galay waxa kamid ahaa boqorka gabooyaha oo Hargeysa uga yimid tacsida iyo geerida Khadiija Maxamed Diiriye waxay bixisay baad Khadiija ilaahu naxariisto Khadiija waxa ka yimid anu Hargeysa Khadiijana in badan waad iga aragtay meediyaha anigoo ka hadlay Khadiija arinteeda maanta dhimatayna إن شاء الله تعالى Khadiija محمد ديريه لو بمينو والله نية هو waxaan ku misaal ma garanayo ama baan idinku sheego geerida maanta inagu timid Soomaalida ku timid khaas ahaan anaku wax weyn ma dareemina إن شاء الله waxaanu sameeynayana Khadiija waxaanu sameeynayaa Khadiija Maxamed Diiriye iskuul dadka caruurta agoonta iyo dadka moogtahay dhibaataysan moogtahay mudayirta wax lagu baro magaceedana ku qori doona Hargeysana ka sameeynaya insha Allah taala dhulka wana haynaa insha Allah waxaanu sameeynaa iskuulkaas oo ku xasan doona Khadiija saa ku leeyahay insha Allah taala magaceeda Khadiija waxa lagu sifeeyay qof naxariis badan dadka taagta darana u roon saaxiibo badanna kasbatay intii ay nooleed qaar kamid ah haweenkii la soo shaqeeyay ayaa ka waramaya shakhsiyadda iyo dhaqankii marxuumadda Khadiija Maxamed Diiriye walaashay waa ku baahnay laakiin alla ku soo baahday meesha ka sida u noqotay Khadiija ku dacayni hortaan wala dhigo qabriga waa sax Allah kaaga dhigo qabri Ilaahay kugu muhuriyo intii adduunyo intii Ilaahay ku shido intii aakhir Allah ku shido kutaabka midigta Allah ka sii Khadiija Maxamed Diiriye dhaqma dhimata Khadiijo نورته وحقينايو إلهي وحن كاغو توغنا هايو جرت الفردوس إنس إلهي كوغيليو إلهي قبرك هو واسعيو إهلكي يا أصحابتي أي كتكتينا صبر هاك سعيو جيريدا خديجة محمد ديرية آمين آمين هاتنا بوتلان Laascaanood iyo deegaano ka tirsan SSC Qaatumo waxa cirka galay oo aad loo hadal hayaa mustaqbalka iyo masiirka waxa uu noqonayo 17 xildhibaan ee SSC Qaatumo uga qayb gali jiray baarlamaanka Puntland maanta waxa ka dhacday Laascaanood isu soo bax uu kula hadlay dadka Cabdiqaadir Firdhiye hogaamiyaha SSC Qaatumo halka badin maayo 6 February waxa lagu dhawaaqay maamulka SSC Qaatumo 5 August sanadkan gudihiisa waxaana loo doortay inaan noqono hogaankii maamulka SSC Qaatumo 10 Augustna waana loo dhaaray xilka baan la wareegin ilaa iyo imikana annaga gacanta ku hayna
masiirkii dadka kan iyo dalka kan waxaanu aaminsannahay waa ku filannahay waxaanu aaminsannahay inaad nagu kalsoon tihiin waa ku kalsoonnahay inaad idinkuna dawrkiina qaadanaysaan jabaahiiray talada SSC Khaatumo xagala geel wax gunti la geliye ka weyn maanta wax garaatuurta ku qaadan karaya maaha wax Cabdiqaadir ku tala bixi karayana maaha talada SSC Khaatumo maanta waxay ka go'daa kii dhintay ee xabaasha loogu reebay ka go'daa waxay ka go'daa kii waxyihiisa ku naafoobeen waxay ka go'daa kii ku dhaawacmay waxay ka go'daa kuwa maanta taagan ee bacadka u soo baxay ee la masiirka iyaga hala caday ka go'daa kuwa maanta difaaca ku jira furinta ku jira ka go'daa ma jirto go'aan garaad iyo maamul intay kaligood gaaraan ay idinku dul akhriyi doonaan go'aanka iyo talada sida ugu dhaqsaha badan la aynu u gaari doono qayb baad ku yeelan doontaan ra'yigiinana waa la dhegaysanayaa waana la ixtiraamayaa waana la qaadanayaa dhinaca garowe diyaar garow baa socda inkastoo weli la isweydiinayo baarlamaanka xubnaha ka iman doona dhanka Khaatumo haddana xagga amniga aad baa loo sugay waxa la soo bandhigay ciidamo la sheegay inay doorashada ilaalin doonaan shaqo dhaba leen ka raba oo dadkan ilaahay mas'uuliyadaas idinku inii saaray idinka ciidana waxa la rabaa inaad si sax wax u qabataan dadku ma aha cadow wixii cadow waa iska qabanaysaan wixii qaloocan waa qabanaysaan laakiin waa dadku waa dadkiina guulguul iyo qori ku taag iyo xabad ku rid midna lama ogola xabad aan amar qoriga lagu gelin lama gelin karo waa in amar lagu geliyaa waa in amar lagu ridaa ammaanka la furaa xabadda la geliyaa haddana rididda waa inay amar heshaa laakiin haddaad tidhaahdid waa iska riday waa iga fakatay ammaankaada kan hal xabba magaalada lagama maqli karo xabad soo ilaalinaysa haddaa adigu ridays lama rabo wahga daqiiqadihii wararka ayaad weli naga daawanaysaan Israa'iil way ku guul daraysatay inay Gaza la wareegto inkastoo duqeyn xagga cirka ay dadka ku xasuuqayso haddana tilaabo way qaadi laadahay dagaalkii infantryga ee lugta ahaa Hamas iyo kooxaha kale iska caabinta wala mari laayahay dhimashada guud ee dadka Israa'iil ay laysay waa 20,000 oo qof 8,000 oo kamid ah waa caruur dhaawaca ay geysatayna waa 52,000 oo qof Israa'iil hadda waxay ku baryotamaysaa aan wada hadalno oo Hamas aan la heshiino balse Hamas shuruud bay dhigtay meesha oo waxay leedahay dagaalka waa in gebi ahaanba la joojiyaa ka hor intaanan la wada hadlin maanta Gaza gantaalo laga soo garaacay ayaa dhulka Israa'iil xoog ku haysato lagu garaacay khasaare ayaana halkaas ka dhashay wahagaag aan gobolka Gada aadno dacwad la yaab leh ayuu dhageysigeeda maanta gobolka Gada ka bilowday laba askari oo mid ay haweenay tahay ciidankana ka tirsanaa ayaa loo haystaa dilal ay geysteen laguna eedeynayaa bal aan daawano sida dacwadaas ay u dhacday taariikhdu markii ay ahayd 11 bisha 11aad 2023 dilkaas oo ka dhacay degmada Ambelad Xaawo abaara 5 saac oo habeenimo xabadaha markii ku dhufatay marxuumka Ilaahay u naxariistay waxa isla markiiba goobta yimaaday ayadoo ordaysana ka hor timaaday askari ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan guutada 10aad isla markaasna ay leedahay waxaan dilay aadan cali aadan ee kaaliqad askarigii gabadha ee sanad ah wuxuu ku celiyay gudaha guriga wuxuu dul tagay askarigii oo dhulka yaalo xabada madaxa kaga yaalaan aadna u dhiig baxay wuu soo qaaday qorigii wax ku dishay iyo dhaawicii iyo ayada iyo qorigii wuxuu ku wareejiyay saldhigga degmada Beled Xaawo dhaawiciina waxa la geeyay dhakhtar degmada Beled Xaawo gudaheeda jooga kadib markii dhakhtarkii uu waxba ka qaban waayay dhaawaca oo darnaa darteed waxa laga maarmaan noqotay in dhaawaca loo qaado Kenya gudaheeda oo laga gudbiyo xuduudka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxay waxa la geeyay dhakhtar jooga Mandera
saacad kadib askarigii wuu dhintay ilaahay ha u naxariisto mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan soo bandhignay marqaatiyaal ka hor sharaxay maxkamadda wixii ka dhacay meesha sidoo kale waxaan soo bandhignay dambi muujinta qorigii wax lagu dilay sidoo kale waxaan soo bandhignay baare khibrad u leh baarista si qoto dheerna u soo baaray maxkamadda horteedana ka faahfaahiyay wixii ka dhacay meeshaas gada aan ka tagno xagga iyo shabeellada dhexe aan tagno deegaanka wargaadi oo degmada cadala ka tirsan reeraa isku laynayay muddoba dhul baa la isku haystaa ciidankii nisa ee reerahaasi kala dhexgalay ayaa burburiyey dhulkii la isku haystay sidan ayayna wax u dhaceen qof kasta waxay sheegatana waxaa laga rabaa marqaati iyo caddayn iyo marqaatiyo dhaar iyo caddayn iyo haddii aad qabiilkiinni abgaal aad u doonaysiin oo wax idii caddeeyo aad qabiilkii ka heli doontiin iyo haddii maxkamad intay idiin dirto dad caddaymo qof waxeeda hala timaado la yidhaahee qof loo xukumi doono allahu aclam laakiin waxaan rabnaa anugu inay arrintu noqoto adinkoo labadii qabiil ka wakiila labadiinaan ninba intuu dood badan oo isleeyahay dhulkan adaa saa kuu soo dhici kara hadda urabi hadooray halkaa inta tagtiin ka muddaca maxkamadyaa laydin geeya maxkamadda degmada cadalay ka furan tahay degmada cadala taga galka furta odayaasha dhaqanka ee ka socday labada dhinac ayaa ballan qaaday 19 maalin ka hor in si sax ah loo qaadan doono amarka la dul dhigay dhulkan intii dhulkaas lagu kala baxayo waxaas maxkamaday u taala anuka nooma taal waxaan rabnaa arrintaas sabab dhul ka timid la falay hadday ka timaado mas-uuliyiin aad ka qaadaysa warkaas ma qaadateen warkaas ma qaadateen beer la falay mas-uuliyadu ka timaado ay qof wax ku gaaraan amba qof ku garaakooda lamadiina aad ka rabto warkaas ma garateen waa garan kor u taaga gacanta kor u taaga gacanta kor u taaga adeegana warkaas ma qaadateen waa qaadan warkaas ma qaadateen taag adiga gacanta waa qaadan taag warkaas ma qaadateen ma qaadateen aniga xaggayga wixii ka yimaada adigana lahadna waa xaq ilaahu marqaati ka ahaw daqiiqadii wararka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin daawashadiinna tan iyo kulan dambe nabadgelyo faa'iidooyinka adeega ibesa send money dirista lacagaha withdraw money qabixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka ibesa pay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka ibesa global xawilaadaha ibesa mastercard virtual mastercard banking service adeegyada bangiga ibesa goor kasta iyo goob kasta macmi weli hore ma u maqashay applicationka Banana Pay haddii aadan hore u maqal Banana Pay waa mobile money application kuu sahlaya inaad si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo ma baahnid inaad xafiis booqatid waxaana inoo keentay shirkadda Tawakkal Express oo muddo ku siman 30 sano ka shaqeynaysay nidaamka xawilaadda lacagaha haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa Banana Pay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan Soomaaliya iyo Kenya waxaad lacagta ku diri kartaa adeegyada mobilka gacanta sida Sad Sahal EFC Plus iyo M-Pesa Kenya waxaad sidoo kale ku diri kartaa adeega T+ bangiga Sombank iyo xawaaladda Tawakkal Express haddaba ka faa'iideyso Banana Pay oo kuu samaysay qiimo dhibis ballaaran oo ah 20% waxaana lagu adeegayaa qiimo jaban